munaasabada xilka kula kala wareegayeen maareeyihii hore iyo kan cusub ee dhawaan loo soo magacaabay madbacadda qaranka ayaa saaga ka dhacday hoolka madbacadda qaranka Somaliland. Munaasabadani ayaa waxaa ka soo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, barasaabka gobolka Muruudijeec iyo mutasharrif kale oo aad u tiro badan. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah shaqaalaha madbacadda qaranka, waxaanu ka warbixiyey marxaladii kala duwanaa ee madbacadda qarankani soo martay, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa anoo ku hadlaya afka shaqaalaha. wakaaladda madbacadda qaranka waxaa la aasaasay 1997 laguna aasaasay wareegta madaxweyne oo tirsigeedu ahaa 0297. waxaana soo saaray marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ahaa markaa madaxweynihii waddanka jamhuuriyadda Somaliland. mandate-ka ama waxa ay u xil saaran tahay madbacadda qaranku waxa weeye hubinta, xafidnaanta iyo dardargelinta daabacaadda dowladda. halkaasi ka hadlay labada mas'uul ee xilka la kala wareegaya Siciid Saalax Shire, Maxamed Ibraahim Raage, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa ka waramo muddadii aan ka joogay iyo waxyaalihii aan la kulmay anigoo waqtigan badinayno muddo badan aad fadhideen sidaan ka warqabno madbacadda waxaan imid xilligii aan noocayd 22 February 2016 muddada aan joogay madbacadda waxaa saarnaa culaysyo fara badan oo nolosha shaqaalaha ah, daryeelka mashiinada, dib u casriyeynta dhismahayaasha aynu maanta ku jirno ay ka mid yihiin. waxyaalahan dib u cusboonaysa waxaa ka mid ah waxyaalo fara badan oo imika jira nolosha shaqaalaha madbacadda qaranka ka shaqeeya. waxaan ku dadaalay inaan u kordhino mushaharkoodii boqolkiiba 58 inaan kordhino mushaharka shaqaalaha. waxaanu sameynay gunooyin shaqaale oo ah dhiirigelin. shaqaalaha madbacadda qaranku waa nimo ku jira inta badan khad iyo sun iyo tiinar, haddana waxaan u sameynay gunno yar oo aan kafayn karin xilligaa caafimaadkoodii annagoo ka duulaynay duruufaha markaa haystay madbacadda. ilaa hadda shaqaalaha madbacadda qaranku ma aha niman qaata wax ku filan. mashiinada madbacadda Soomaaliya markii Soomaaliya dadkii looga jiray inaan yaroo dhex taagan baan ahaa, waayo injineerkii hore ee madbacadda qaranka Soomaaliya ayaa walaalkii ahaa Jaac Raage Ibraahim. intii garanaysa madbacadda way garanaysaa korontada, markaa injineerka ay soo koriyeen aniga ilaahay u naxariisto Jaac Raage Ibraahim. marka madbacadda familiar baan ahaa. madbacadani ma ahan maareeyo lagu bedelo, wax loogama bedeli karo, shakhsina loogama bedeli karo. waa collective responsibility way ka bilaabmaysa ilaa madaxweynaha, ilaa wasiirada, ilaa bankarka, ilaa dekedaha. waxaan halkan uga yeeranayaa waxa weeye anigu horjoogaan layga dhigay madbacaddan, laakiin inay tala shaqayso waa wax qarankan oo Axmed Cabdiraxmaan, telefishinka madaxa bannaan ee Somaliland Space Channel, magaalada Hargeysa.